karka iyo ado madaxa iyo guudku cadaaday oo ugu gaagay 70 gowa kor u dhaafay hadii golo laga soo kaasho oo guurti lagu muudo gacalkiyo sokeeyaha intaad meel fog kala geyso giicla lama yeedho iyo waxaan ku gar noqonayo in la iskaba garoociyo adoo jooga gidaha marka waxaan leeyahay cid dagaalamaysa ma jirto wadanka muusena far buu ku yimi cod buu ku yimi far baa lagu dirayaa muuse abwaan cismaan ku jiro dhawaan Soomaaliland kaga dhawaaqay urur siyaasadeedka Ugbaad ayaa waxa uu ka hadlay doorashada ururada siyaasadda oo la isku mandhaabsan yahay xilliga ay dhacayso cismaan ku jiro ayaa waxa uu xisbiyada mucaaradka ah ugu baaqay in habka ay wuxuu mucaaradayaan ay ka fiirsadaan isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri wallahi waxaan u arkaa horta marka hore anagu xukuumadda anigu gudoomiye urur siyaasadeed baan ahay xukuumadda iyo qolada kale ee mucaaradka labadaba marka dhaliisha leeyihiin in dhaliishooda loo sheego aad bay runtii ay muhiim u tahay marka anigu waxaan u arkayay khalad weyn baan u arkayay sababtoo ay tahay wadankan dadka tacab badan baa ka galay dhibaato badanna waa loo soo maray sidaad la socoto Axmed Silaayo siyaasiga weynaa ee rugcadaaga ahaa Soomaaliland 7 sanadood buu ururkii SNM hogaaminayay oo kaynta ku jiray oo jira u gashay wadankan tacabkii uu soo galay markii dambena waad ogeyd xisbi buu ku dhawaaqay in Riyaalo la tartamay 80 baa laga helay laba goor baa in Riyaale kororsaday mar walba wuu samray marka hadii waxaan u maleynayaa ninna wadanka ugama halgan badnayn waxa uu isagu gartay in iyagu garan waayaan maaha waxa weeyaan in ay u samraan sababtoo ay tahay waxa wadanku hadii uu dimo xalayto waxaan arkayay gudoomiyaha xisbiga wadani isagoo sidii nin fanaan oo heesaya dadka dhex marayo oo leh soo dagaalamaysan iyo soo halgamaysan iyo soo dalka difaacimaysan anigu cid dalka laga difaaciyo runtii ma garanayo waxaan leeyahay xusku nimu ka guuriya haduu sabi wax ku geysto oo kugu gabood falon yari waad ka gamadaayo cunug gibina yaad wax ku kaco uga garowdaayo nin gaboobay waa ceeb inuu gafu badheedhaayo garka iyo ado madaxa iyo guudku cadaaday oo ugu gaagay 70 gowa kor u dhaafay hadii golo laga soo kaasho oo guurti lagu muudo gacalkiyo sokeeyaha intaad meel fog kala geyso giicla lama yeedho iyo waxaan ku gar noqonayo in la iskaba garoociyo adoo jooga gidaha marka waxaan leeyahay cid dagaalamaysa ma jirto wadanka muusena far buu ku yimi cod buu ku yimi far baa lagu dirayaa muuse kalsoonida shacabka in la hanto ayaa muhiim ah oo cid walba ay hanato hadday yihiin urur siyaasadeedada hadday yihiin gudoomiyaasha xisbiyada waxa weeyaan kursiga wax lagu kala heegaya waxa weey codka shacabka weeyaan laakiin goolaaftan iyo magaranaysa iyo dagaal baa dhacaya maaha xilli maanta shacabka Soomaaliland iyo dhalinyarada aqoonta leh wax baratay ee 30 sanadood wax baranaysay jaamacadaha ka baxaysay waxaan u maleynayaa inaanu kursi baan waayay qori soo qaatay inaanu ku dagaalamay baarmaranaya marka waxaan leeyahay sidoo madaxweynaha ugu sheegnay dhaliishiisa anigu waliba aan ugu sheegay habeen iyo maalin baan la soo taagnaa dhaliishiisa in iyagana dhaliishooda loo sheego xaq baan ugu leenahay madaxweynahana waxaan leenahay doorashadii waa laga sugayaa madaxweyne ururada iyo timirtooyada labadaba inaad qabataa baan ka doonanaa waan kaaga fadhinaa 5 sanadood ee lagu doortay mandate-ka qaranka aad u haysatay waa gabagabo marka waxaan leenahay madaxweynaha doorashadii madaxtooyada iyo tii ururada siyaasadda labadiba waan kaaga fadhinaa waan ka sugaynaa iyagana waxaan leenahay cagta dhiga waxa weeyaan cid wadankan wax sameynaysa ma jirto wadankan halka uu dhaafay qaran weey cagaha isku taagay waa qaran balaaran intaasoo doorashooyin ka soo dhaceen nin walba doorasho meesha ku yimaada doorashana uu kaga tagaa codka shacabka kasbado oo muuse meesha aynu ka diro ka tuquntuqno intaynu codka ka helo laakiin yeynaan oran dagaal baa dhacaya iyo xabad iyo halgan iyo yaa wadanka laga qabsan laga difaacaya marka waxaan arkaa arrin khaldan baan arkaa idinka adiga iyo siyaasiyiinta kale ururada ku dhawaaqay rajo intee lag baad ka qabtaan inaad doorashada ururada gashaan maadaama komishinkii qaban lahaaba haatan khilaaf soo kala dhex galay madaxweynuhuna baaritaan guddi baaritaan geliya uu magacaabay wallahi horta anigu khilaafka komishinka runtii sax xumaan arkaynin sababtoo ay tahay waqtiga lagu soo beegay waxaad moodaa waqti qarankii lagu curyaamay waqtiga doorashooyinka ay soo galayeen laakiin anagu rajo fiican baanu ka qabnaa madaxweynuhuna intaasoo goor buu ku celiyay inuu tartankii ururada siyaasadda qabanayo annaguna tartanka ururada siyaasadda aan u fadhinaa anagu qoladayada ururada ku dhawaaqday anagu tartan madaxweyne imika sugi mayno laakiin anagu kaanu suganaa waxa weeye kii ururada
madaxweynuhuna wuu ballan qaaday intaas oo meelood buu ka ballan qaaday inuu qabanayo tartankii ururada marka rajo fiican baan ku qabnaa anagu in la qabto tartankii ururada dhanka kale waxa uu sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan doorashada ururada siyaasadda Soomaaliland ee la filayo inay dhacdo. Axmed Shimaali, Hon Cable TV, Hargeysa.